soo dhawaada asxaabay maanta waxa fududaatay inuu qofku caan noqdo taasna dabcan waxa ka caawinaysa baraha bulshada dadka qaarna waxay caanimada ku mutaystaan xirfadda ay soo bandhigayaan kuwa kalena waxay ku helaan muuqaalkooda soo jiidashada leh laakiin ka warama haddii mar kaliya aad si kadiisa caan ku noqotid maanta waxaan idiin soo bandhigaynaa shakhsiyaad si kadiisa adduunka ugu caan baxay nasiibkooduna saaciday. I don't know. Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, don't cry, are you? haddaba intaynaan bilaabin muuqaalka subscribe taabo si ay ku soo gaadhaan muuqaalada dambe soo gelina. Cindy Kimberly waxay noqotay gabadhan caan gooraan habeen ahayn maalin ahayn kadib markii heesaaga caanka ah ee Justin Bieber soo dhigay gabadhan sawirkeeda bartan Instagram-ka isagoo soo raaciyay sawirkeeda qoraal ah oo yaa ilaahi tani waa tuma waxaanay dadka ku xidhan ee taageera heesaagan reer Kanada kaga falceliyeen qoraallo ay ku ammaanayaan gabadhana waa ardayda Spanish ah oo da'deedu tahay 17 sano sawirka kadib waxay Cindy noqotay mid adduunka caanka ah waxaana soo jiitay dadka muuqeeda cajiibka ah taasoo ka yeeshay in shirkadaha waaweyn ee caalamku heshiis ay wax ugu xayeysiinayso ka saxeexdaan. dancer wadanka Jarmalka u dhashay ninkan waxa uu helay shacbiyad aad u ballaaran kadib markii uu muuqaalo dheelayo ama jaasay ku faafiyay YouTube waxaana daawaday muuqaalkiisii 43 milyan oo qof maantana waxa uu ka mid yahay ragga hogaaminaya ololo kasto ay shirkadaha caalamka ku xayeysiinayaan badeecadahooga heerkaas oo dhanna waxa uu ku gaadhay muuqaaladii uu soo galiyay YouTube-ka. Mike Frashafsky wuxuu ku naaloonayaa dabiibkan caanimo weyn waxaana adduunka ka yaabiyay sawiradii uu ninkan iyo asxaabtiisu ku faafiyeen barta caanka ah ee Instagram waxaana dadkii ku naanayseen dabiibkii ugu quruxda badnaa adduunka waxaana ninkan u yimi shirkado badan oo ka doonayay inuu xayeysiin u sameeyo maadaama uu leeyahay muuq soo jiidasho leh waxaanu gabi ahaanba iska diiday inuu qabto shaqada isagoo shaqadiisii dhakhtarnimo baaqi ku sii ahaaday. Salta B kuugan u dhashay wadanka Turkiga waxa uu ku caan baxay sida uu milixda ama cusbada ugu adeegsado dheriga iyo sida khaaska ah ee uu kariyo hilibka gaar ahaan hilibka ku dahaaran dahabka waxaanu maanta caan aad ah ka yahay baraha bulshada gaar ahaan Instagram-ta waxaanu haystaa taageero kor u dhaafaya 20 milyan oo qof waxaanu caanimadiisii u bedelay ganacsi isagoo maqaayado badan ka furtay magaalooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin Ankara, Doha, Dubai, New York, Miami iyo kuwo kale badan. gabadha ugu quruxda badan caalamka Suuriya ama sida lahjada Kurdiga lagu yiraahdo Zuuriya waa gabadh Ciraaqi Kurdiya waxaana caalamka soo jiitay quruxda indhaheeda waxaanay gabadhan yari ku iibisaa khudaarta xuduudda Kurdistaan waxaanay maanta caan ka tahay dhulka Carabta oo dhan kadib markii wiil dhalinyaro ah ka helay isagoo ka soo qaaday dhowr sawir oo degdeg ah kadibna waxa uu ku faafiyay internetka waxaanay dadkii arkay sawirkan ku qiyaaseen in wajiga iyo indhaha cagaarka ah ee gabadhan yari ka dhigayaan gabadha aan qangaadhin ee ugu quruxda badan adduunka. gabadh ardayda oo degan magaalada London waxay sawirkan ka qaaday wiilkan lagu magacaabo Nicky oo ka shaqeeya meesha dhismaha waxaanay sawirkii ku faafisay internetka gaar ahaan Twitter-ka dadka Twitter-ka isticmaalana waxay sawirkii ka keeneen hadalhayn badan waxaanay la tacajabeen ama la yaabeen wiilka sidan u qurxoon ee ka shaqeynaya meesha dhismaha maalmo kadib hadalhayntii sawirka waxa wiilkii heshiis la gaaray wakaaladda Ellet ee dharka xaysiisa sidii baanu ku caan baxay isagoo shaqadiisii hore iskaga tagay. Emmanuel Fasno wiilkan Talyaaniga ah wuxuu maalin dib uga dhacay iskuulkiisa waxaanu bilaabay inuu muusik piyaanaha ku garaaco meel maxadada ah oo dadku ku nastaan nasiib wanaag waxa arkay isagoo muusiga tumaya mid ka mid ah muusik soo saarayaasha caanka ah oo taagnaa wadada waxaanay dadkii moobladoodii ku duubtay muusigii uu garaacay wiilku waxaana mid ka mid ah muuqaaladii lagu faafiyay internetka muuqaalkaasna waxa uu noqday mid u horseeda wiilkii caanimo waaliya ugu dambeyntiina ninkii muusik soo saara ahaa baa ku xidhay shirkadaha waaweyn ee muusiga soo saara waxaanay la gaadheen heshiis uu kula shaqeynayo lacag waaliyana ku qaadanayo. darawal bajaajla ah darawalkan gaadhiga mootada ah wataa waxaa soo galay social media muuqaal laga duubay waxaanu muuqaalka kaga hadlaya isagoo cambaaraynaya dawladda Masar dhanka kalena wax ka tilmaamay maciishad xumada iyo dhaqaale darada ay la dhibaatoonayso Masar. عشان الناس اللي مش لاقيه والناس التعبانه وطالعين في التلفزيون مصر بتنهض مصر بتروح ومصر بتيجي وعمالك نرمي الفلوس
في مشاريع قومية ملهاش لازمة، واحنا التعليم عندنا متدني لأسفل مما تتخيل. ازاي يبقى waxaanu waraysiga muuqaalkan siiyey barnaamijka waaxid min annaas oo telefishinada Masar ka baxa. waxaanu ninkan darawalka ahi noqday mid caan ka ah shacabka Masar dhexdooda. waxaanay wakaaladaha wararka Masar oo dhami doonayeen inay waraysi la yeeshaan ninkan, laakiin siday baahiyeen shabakadaha wararku, ninkii darawalka ahaa wuu baxsaday kadib muuqaalkii lagaga faafiyey internetka, isagoo shaqadiina xitaa iskaga cararay baqasho ka baqaya wasaaradda amniga Masar.